kulanti wacan oo wanaagsan qiyaartina daawanaysa meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan Maracada Show. aniga waa Maxamed Ciise. waa 19 bisha December sanadka 2024. qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doona waxaa kamid ah madaxweyne Vladimir Putin maanta afka ayuu furtay min bariga dhexe Ukraine iyo dalka Ruushka. waxa uu soo hadal qaaday sida Israa'iil ay faa'iido ugu noqotay isbedelka guud ahaan ee ka dhacay gudaha dalka Suuriya. waxa kale oo ka hadlay Ukraine iyo suuragalnimada inay la wada hadlaan waa maxay dagaalka cusub ee looga dhawaaqay gudaha dalka Syria ee ka dhanka dawladda Turkiga. ma waxa markaana isku dhici doona Turkiga iyo Mareykanka. ciidamadii ka cararay dalka Suuriya oo gaaray dalka Ciraaq oo la bilaabay in dib loogu soo celiyo dalka Suuriya halkee ayay aadi doonaan. waxaan eegi doonaa ciidamada Israa'iil oo dhex mushaaxaya qaar kamid ah magaalooyinka dalka Suuriya. waxa kale oo raaci doona mas'uulka ugu sareeya xoogagga la wareega dalka Syria wuxuu ka hadlay masiirkiisa xiriirka uu la yeelan kara Al-Qaacida iyo Turkiga oo dhankiisa ka hadlay isbedeladii ugu dambeeyay ka dhacay gudaha dalka Syria iyo sida xaalka uu yahay. xoogagga iska caabinta ee Falastiiniyiinta oo meel cidla ku helay tiro kamid ah ciidamada Israa'iil weerarka ay maanta ay fuliyeen. qodobo kale oo muhiim ah ayaa raaci doona. soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada. aad baad u mahadsantahay. waxaan isku dayaa insha Allah qodobadaas oo idil inaan soo koobo. waad mahadsantahay mar kale. shirkadda Royal Modern Homes waxay idin haysaa guryaha kala ah Rotana Apartment iyo Roof Apartment oo ku yaala Nairobi, Kenya. guri kastaana waxaa kugu diyaarsan masaajid weyn, madarasad, laba supermarket, pharmacy, gym iyo goob carruurta ay ku ciyaaraan iyo cafeteria casri ah. waxaadna helaysaa guri cusub oo bilow ah iyo mid dhammaad ah. hadda dooro midka aad doonayso. qaabka lacag bixintu waa qaab fudud oo shuruud aan lahayn. waxaana ku dheer in lagu soo saarayo deganaanshaha dalka Kenya. wixii faahfaahin kale xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo. mar kale isku soo noqod wanaagsan qiyaarteena daawanaysa waxaan ku hormaraynaa muuqaalkan waa ciidamo ka tirsan kuwa badda ah ee dawladda Syria kuwaas oo sida la sheegay bilaabay in howlgallo ay ka sameeyaan dhanka xeebaha magaalooyinka dhaca oo dhawaanahan gacanta ay ku dhigeen. waana markii ugu horeysay oo tan markii nidaamkii Bashar al-Assad la arko tiro kamid ah ciidanka badda ee dawladda Suuriya oo howlgallo ka sameynaya dhanka iyo badda. muuqaaladan ayaana qabsaday guud ahaan warbaahinta ee dalkaasi Suuriya. madaxweyne Vladimir Putin maanta waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan caalamka si gaar ahaaneed Ruushka iyo howlaha horyaala. waxa uu ka hadlayay muddada sanadkan sii dhamaanaya ee Ruushka waxyaabihii uu qabsoomay isaga oo shir caalami ah ka qayb galay. madaxweyne Vladimir Putin waxa uu soo hadal qaaday Syria iyo isbedelkii ka dhacay. waxa uu si cad u sheegay madaxweyne Putin ilaa iminka inuusan la kulmin madaxweyne Bashar al-Assad oo Syria laga eriyay tan iyo 8 December. waxaana uu yiri waan qorsheynayaa inaan la kulmo Bashar al-Assad si aan arrimo badan kagala hadlo. waxa uu soo hadal qaaday saldhigga ay ku lahaayeen dalka Suuriya isagoo sheegay saldhigyadaasi iyo mustaqbalka xilliga ay u baahan doonaan inkastoo ilaa iminka aysan ogeyn in arrimahaasi ay kala hadli doonaan hoggaanka cusub ee dalka Syria la wareegay. waxaana uu si cad carabka ugu adkeeyay isbedelkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha Syria waxa ka faa'iideystay buu yiri Israa'iil oo dhaqdhaqaaq bilowday tan markii 8 December ciidamadii Suuriya laga qabsaday magaalooyin dhowr ah. adiga oo ku saleynaya warbixinadii ugu dambeeyay ee aan kula wadaagay tan iyo 8 December maxaa kaaga baxay hadalka madaxweyne Vladimir Putin adigoo eegaya Israa'iil iyo sida ay kaga faa'iideysatay isbedelkii ugu dambeeyay ee Suuriya ka dhacay. waxaan rabaa aniga oo hadalka daba jooga inaan kula wadaago muuqaalkan waa qaar kamid ah taangiyada dagaal ee ciidamada Israa'iil oo dhex mushaaxaya magaalada Darca lagu magacaabo. waliba waxa la sheegay ilaa 9 kiiloomitir inay gudaha ay u galeen deegaanadan oo dhanka xadka ah. deegaanka taariikhiga lagu magacaabo Al-Wahda ee u dhaxeeya sida la sheegay Syria iyo Jordan. tolo Israa'iil ma waxay ka dhabeynaysaa qorsheedii isbalaarinta iyo abuuridda Israa'iishi weyneed ee ay muddo badan ku taamayeen Israa'iiliyiinta. waxaad aragtidaada ku reebi kartaa qaybta hoose. taangiyadan ayaa markii ugu horeysay gudaha Suuriya gudaha u galay tan iyo 8 December. Israa'iil isbedeladeedii ugu dambeeyayna waxay u muuqanayaan kuwa ay qorsheynayaan inay gudaha Suuriya in badan ay galaan. haddaba waxa wax laga weydiiyay Ahmed al-Sharaac ninka lagu magacaabo ama Maxamed al-Jaliil sidaad u taqaanidba waa ninka hoggaanka u haya ciidanka Tahriir al-Sham. waxa wax laga weydiiyay shaatigii hore ugu jiray ee uu iska bedelay yani xiriirkii uu la lahaa Al-Qaacida iyo iminka
sida xaalka uu noqon doono iyo Syria waxyaabaha uu la doonayo. waxa uu shaaca ka qaaday in Syria aysan u ekaan doonin sida Afghanistan oo kale, waxana uu yiri howlgallada military ee dalka Suuriya ma noqon doonaan sida kuwa shabaha buu yiri Afghanistan. waxana uu shaaca ka qaaday in xiriirkii ula lahaa al-Qaacida uu ahaa yani wax mar hore ahaa, laakiin hadda sheekadu sidaasi ay ka duwan tahay. wuxuu soo hadal qaaday sida uu doonayo inuu hadda kaga shaqeeyo dalka Suuriya iyo isbedelada iyo horumarada uu la doonayo. wuxuu yiri iminka wax xiriir ah lama lihi urur madax banaan ama urur kale oo dibadda ah ama xisbi ama qaybtu doonaba ha ahaado. kadib markii waraysi uu siiyay telefishinka BBC-da ayaa wuxuu kaga hadlay arrimo dhowr ah, waxaana uu soo hadal qaaday inuu ka qayb galay dagaalo hore kaga dhacay gudaha dalka Ciraaq kadib markii jabhadeynta uu ku jiray, waxaana uu beeniyay wararkaasi, waxaana uu yiri aniga marnaba kama qayb galin dagaal ka dhacay gudaha dalka Ciraaq. Maxamed al-Jawlani waxa sidoo kale uu sheegay maadaama Syria ay dad kala jinsiyada duwan ay joogaan in marnaba aysan la dooneynin inay haadaan ay ka ridaan. wuxuu yiri danaha dadka Suuriya ayaan ka shaqeyn doonaa, waxaana uu ka dalbaday dawladaha reer galbeedka iyo Mareykanka in cunaqabataynta ay ka qaadaan dalka Suuriya. cunaqabatayntaas oo Suuriya lagu kordhiyay tan iyo nidaamkii Bashar al-Assad. waxaana uu yiri Syria waxaan doonayaa inay noqoto Syria ka duwan midii hore, aniga oo doonaya in aan u shaqeeyo dadka shacabka ah ee reer Suuriya kana shaqeeya dantooda. waxyaabihii hore u ballan qaaday waxaa kamid ah in Syria aan Israa'iil laga weerari doonin, yani Syria inaysan noqon doonin saldhig Israa'iil laga weeraro. markaad eegto marka hadalka madaxweyne Vladimir Putin ee ah isbedelka ugu dambeeya ee ka dhacay dalka Suuriya in Israa'iil ay ka faa'iideysanayso iyo xaaladda guud ahaaneed ee dalka Syria, aragtidaada waa nala wadaagi kartaa. dhinaca kale Israa'iil waxyaabay ka faa'iideysata waxaa kamid ah inay duqeyso goobo badan oo ciidamada Suuriya ay hubka ugu kaysanayeen, inay duqeysay oo burburisay diyaarado dagaal oo muhiim u ahaa hadii dib loo dhiso ciidamada dawladda Suuriya, iyagoo ka faa'iideysanaya fursada yar ee soo bidhaantay maadaama aanay jirin dawlad hadda si rasmi ah Syria kaga dhisan. xogaa isbedelkaasi way ka faa'iideysatay Israa'iil. sidoo kale waxyaabay ka faa'iideysata waxaa kamid ah inay gudaha Suuriya ay soo gashay gabi ahaanna ay laashay heshiiskii sanadkii 1974 ee Suuriya iyo Israa'iil ay kala saxiixdeen. dhinaca kale marka aad eegto isbedelkii ugu dambeeyay ee Suuriya ka dhacay, Mareykanka iyo Turkiga waa labada dawladood ee laga baqayo mar kale inay ku dagaalamaan gudaha dalka Suuriya maadaama ay kooxo kala duwan oo Suuriya ka dhisan ay kala taageersan yihiin. xogaga SDF ee Kurdiyiinta ah waxay ku dhawaaqeen dagaalkaas oo ka dhan ah ee dawladda Turkiga. muddooyinkii ugu dambeeyayna Turkiga xogagan si weyn ayuu kaga soo horjeeday, waxaana ay yiraahdeen waynu la dagaalami doonaa Turkiga. waxaana ay shaaci ka qaadeen in iyaga ay mar walba doonayaan heshiis xabad joojin ah, laakiin heshiiskooda xabad joojinta marnaba ma qancinayo Turkiga iyo xogaga Tahriir al-Sham. maxaa yeelay iyaga waxay doonayaan deegaanada la kala joogo in sidooda loo joogo oo qolo kasta deegaankeeda loo madax banaaneeyo, dhaqaalaha ay ka samaysato lagana soo faragelinin. laakiin arrintaasi Turkiga iyo ma doonayaan Tahriir al-Sham. sababta Turkiga uusan u doonaynin waxay tahay in deegaanada dhinaca xadka ah uu doonayo inuu ka fogeeyo xogaga Kurdiyiinta. Tahriir al-Shamna waxay doonayaan deegaanada dhaqaalaha oo gacanta ay ku hayaan Kurdiyiinta ama dhaqaalaha ugu badan laga sameeyo sida shidaalka oo kale inay aad ugu dhawaadaan. halkaasina Mareykanka ayaa ku sugan, Tahriir al-Shamna isaga ayaa taageera, waana sababta looga baqayo in Mareykanka iyo Turkiga markale halkaas ay si weyn ugu dagaalamaan. xogagan waxa ay shaaciyeen marka maadaama ay soo jeediyeen talooyin dhowr ah oo ku saabsan inaan la dagaalamin, taasina ay u cuntami weysay xogaga la wareegay talada dalka Suuriya. waxay taageen anaga marka dagaal ayaan diyaar u nahay, waynu la dagaalami doonaa Turkiga iyo kooxaha kale ee uu taageero ee ku sugan waqooyiga dalka Suuriya. marka aad eegto xaaladan waxay ku soo beegmaysaa iyada oo Mareykanka hadda uu ka shaqeynayo ugu yaraan xabad joojin la kala dhex dhigo Turkiga iyo xogaga Kurdiyiinta ah ee deegaanka Manbij ee waqooyiga dalka Suuriya ku sugan. hal toddobaad ayaa lagu kordhiyay heshiiska xabad joojinta, toddobaadkaas ayaana la filayaa in la isku fahmo inkastoo hadda maalmaba ay ka harsan tahay. Turkiga marka wuxuu taagan yahay waa in agagaarkayga oo idil ay ka fogaadaan xogagan, iyagana waxay taagan yihiin waa in deegaankeenana loo dhaafaa, halkeena ayaan ku sugnaanaynaa, cidna kuma xadgudbayno, wax tallaabo ahna ma qaadayno. iyadoo sidaas ay tahay marka Turkigana dhankiisa dagaal ayaa lagu waramayaa inuu iclaamiyay, waxaana Turkiga uu yiri ma jiro heshiis xabad joojin ah oo dhex maray xukuumadda Ankara iyo ciidanka SDF. SDF waxa laga wadaa waa Kurdiyiinta
waxaana SDF loo soo gaabiyay Syria Democratic Force waana ciidamo taageero ka hela dhinaca iyo Mareykanka marka mas'uuliyiinta dawladda Turkiga arintaasi way diideen waxay taagan yihiin wax heshiis ma ogolin waxaana laga baqayaa marka dagaal sokay inuu ka dhaco gudaha dalka Syria sidaan hore idin kula wadaagnay hadii xaaladdu sidaan aan wax laga bedelin arrimaha Syria ayaan ku guda jirnay waan soo koobaya insha Allah ta'ala wargeyska lagu magacaabo Al-Arabiya waxa uu baahiyay goordho macluumaadka ku saabsan kadib markii in ka badan 10 maalin ay ku sugnaayeen gudaha dalka Iraq ciidan tiro badan oo Syria ka cararay waxa hadda la bilaabay sida la sheegay in ciidamadaasi dib loogu soo celiyo gudaha dalkooda tan iyo 8 December ciidan tiro badan ayaa dhinaca xadka Iraq ka gudbay oo ilaa 2,000 askari gaaraya sidaan hore idin kugu sheegay afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Iraq ayaa warbaahinta la hadlay Muqtaad Meeri ninka lagu magacaabo waxaana khamiista maanta uu shaaciyay in mas'uuliyiintan ay bilaabeen sidii dalkooda dib loogu celin lahaa tiro kamid ah ciidankan oo markii horeba teendha ka sameysay deegaanka Al-Qiyam lagu magacaabo oo dhinaca xadka dhaca wargeysku waxa intaas uu ku darayaa marka ilaa 100 askari oo kamid ah tirada ciidankaasi inay hadda diideen inay dib ay ugu laabtaan deegaanadooda halka 1900 ee kalena la sheegay in dib loogu soo celin doono oo ay ogolaadeen inay dib ugu laabtaan gudaha dalka Syria in ka badan 2,000 oo askari ayaa sidoo kale la baadigoobaya halka ay ku sugan yihiin deegaanka lagu magacaabo Rutba oo ah deegaan lama deegaan ah oo gobolka Anbar dhaca waxa la sheegay tiro ciidamada kamid ah inay xiriir ay ka dhisteen halkaasina ay ku sugnaayeen inkastoo warar hore oo soo baxayana ay sheegayaan in mas'uuliyiin kamid ah maamulkii nidaamkii Bashar al-Assad ay gudaha dalka Iraq ay gaareen sida walaalka Bashar al-Assad oo lagu magacaabo Mahir iyo sargaalkii ciidanka ugu sareeyay dawladda Iraq arintaasi way beenisay laakiin waxa lagu waramayaa in dhinaca iyo gobolka Suleymaniya in xubnahan ay ku sugan yihiin maxay kula tahay adiga aragtidaada qaybta hoose ku reeb like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada wad mahadsan tahay markaan waxaan eegayaa xoogagga iska caabinta ee Falastiiniyiinta ayaa waxay ku dhawaaqeen in tiro kamid ah ciidamada Israa'iil ay fursad ay ku heleen kadib markii la arkay iyaga oo meel cidla ah ku sugan halkaas ayaana lagu waramayaa inay ugu suura gashay qaar kamid ah dagaalyahanada inay ku qaarijiyaan tiro kamid ah ciidamada Israa'iil ilaa iyo 3 kamid ah ayaa la sheegay inay ku dileen dhinaca iyo Jabaaliya halka qaar koodna la sheegay maanta inay dhaawacmeen war-saxaafadeed ka soo baxay xoogagga iska caabinta gaar ahaan Kataib al-Qassam garabka military ee dhaqdhaqaaqa Hamas ayaa sidaas lagu sheegay qoraalkan oo la soo dhigay dhanka Telegramka waxa lagu yiri dagaalyahanadeenna waxa uu suura gashay inay dilaan sidoo kalena ay dhaawacaan tiro kamid ah ciidamada Israa'iil xilli ay ku sugnaayeen dhinaca iyo Jabaaliya oo waqooyiga magaalada Gaza ah sidoo kale waxa ay shaaci ka qaadeen howlgalkan in loo adeegsaday diyaarad daroon ah oo waxyaabaha qarxa laga buuxiyay xilli ay ciidamada Israa'iil ay ku sugnaayeen deegaanka Megan lagu magacaabo oo ah aag military oo ciidamada Israa'iil ay ku sugan yihiin waqooyiga magaalada Gaza ayuu dhacaa dhinaca kalena Saraaya al-Qudus garabka military Islamic Jihad ayaa dhankooda sheegay in howlgal ay ka fuliyeen deegaan ku yaala dhinaca iyo Qanyoonis waxaana ay xaqiijiyeen in howlgalkaasi ay ku qaarijiyeen tiro kamid ah ciidamada Israa'iil iyagoo sidoo kale sheegay inay gacanta ku dhigeen mid kamid ah diyaaradaha droniska ee howlgallada sahminta ka sameynaya dhinaca Qanyoonis kadib markii maanta howlgal ay ka fuliyeen iyadoo oo dhinaca Jabaaliya marka aad eegto dhulka lala sameeyay dhismayaasha sidaas isla mid ana la burburiyo aaga dhinaca iyo magaalada Rafah haddana aagagaasi sidaa u burbursan Israa'iiliyiintu waa meelaha ay ka baqaan oo dagaalyahanada muqaawamada ay ka soo qaadaan howlgalladooda ugu culus waxa maanta warbaahinta la hadlay Itamar Ben-Gvir wasiirka amniga qaranka Israa'iil waxaana uu yiri waa in aan soo celinaa waliba waajib ay nagu tahay buu yiri inaan soo celino dadka la afduubtay ee Hamas ay gacanta ay ku hayaan dhinaca kalena waxa uu taagan yahay waa in deegaameyn cusub laga sameeyaa qaybo badan oo gudaha magaalada Gaza ah wargeys ka soo baxay Israa'iil oo waala lagu magacaabo ayaa wasiirka Israa'iil warbixintan ka soo xigtay dhinaca kalena waxa Israa'iiliyiinta ku dhawaaqeen maanta inay soo rideen waxa uu eg sida diyaarad daroonisa oo kale oo lagu weeraray magaalada Tel Aviv janaalka 12aad ee Israa'iil ayaa caawa baahinaya macluumaadkaasi waxaana ay sheegeen dhinaca biyaha Mediterranean-ka in waxyaabahaasi ay ka soo gudbeen Israa'iiliyiintana ay arkeen dhulkana la soo dhigay waxaana la sheegay inay u ekay sida diyaarad daroonisa oo ay u badan tahay inay Xuutiyiinta Yemen ay ku weerareen Israa'iil maanta labada dhinac weerar ay isdhaafsadeen Xuutiyiintana waxay shaaciyeen inay gantaale plastic ay ku weerareen magaalada Tel Aviv oo caasimadda Israa'iil ah dagaalka magaalada Gaza maanta waxa uu soconayaa maalintii 440aad waxa soo baxaya in lagu dhow yahay in heshiis la gaaro ilaa iminka laakiin lama hayo warcad oo ku saabsan heshiiskaasi
guud ahaan waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa qaybtana halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa mid lamid intaan ku kulmi doona nabadgelyo